بسم الله الرحمن الرحيم أن وحكا برانو ويديمها كلا ورسا دبت كارد أنا كريدت كارد أن كوهر مرنو إن أن إسلافهانو دبت كارد وكار كوحيران كونتادا آد كل هاي بانجيغا قاسة كارن أكاونكاغا هدابا حل وليبا أو آد استعماشيت كاركاغا وحاسد توصل لوغا جاريا كونتادا تصالي كونتادا waxaa kugu jirta $200 waxaad alaab qiimaheedu dhan tahay $150 kaga iibsatay suuq aqbala kaarkaaga haddaba lacagta ku hartay kaarka iyo isla koontada bangiga aad ku leedahay waxa ay noqonaysaa $50 ileen $150kii kale adiga ayaa ku adeegtay haddaan si fudud u dhigno waxaad isticmaalaysaa lacagtaadii kugu jirtay bangiga intii ay rabtaba ha kula ekaatay waana kaararka hadda ay bixiyaan bangiyada oo ugu horeyso Premier Bank Mastercard iyo Visa Card ay bixiyaan IBS Bank haddaad fiirisid waxaad arki kartaa inay ku qoran tahay debit haddana waxaan rabnaa inaan ogaano inay jiraan bangiyo kaleeto hadda ku soo biiray oo haddana bixiyaan isla Mastercardkaas fiiriya cid walba midka ay haysato waxaad arki kartaa inay meel kaga qoran tahay debit haddaan u soo gudubno qaybta labaad ee ah credit cardka waa kaar ku ogolaanaya in aad deyn ahaan u sii qaadatid lacagta bangiga uu leeyahay hadhow dambana aad iska bixisid haddaba lacagta ku jirta kaarka waxa ay ku xiran tahay credit worthiness of the borrower ama kalsoonida bangiga uu ku qabo qofka la siinayo deynta noocaas oo kaleeta ah bangiga wuxuu fiirinayaa in uu qofka awood u leeyahay inuu deynta hadhow dambe iska bixin karo kuna bixin karo muddadii loo qabtay tusaale haddii dakhligaagu uu yahay $2,000 bishii marka bangiga ay sameeyeen qiimeyn waxaa laga yaabaa in lagu ogolaado $500 oo ku xiran credit cardkaaga waxaa dhacda in qof kaleeto uu dakhligiisu yahay $6,000 bishii marka bangiga qiimeyn ay ku sameeyeen in loo ogolaado $2,000 kaar ah in la siiyo labada qof iyagoo isla halkii bangi u ah macmiil ayaa xadka deynta la siinayo loo kala duwaa dhanka kale kaararkan debit kaarka iyo credit kaarka waxaa lagu xiraa ama ay ku shaqeeyaan current account sidoo kale kaararkan waxaa loo isticmaalaa in aan kaga dukaameysatid kambaniyada aqbala oo ku iibiya alaabaha online-ka ama dukaamaanka caadiga ah waxaana sidoo kale lagu isticmaalaa mashiimanka kala duwan ee loo yaqaano boos sida idinkaaga muuqata sawirka oo aad ka heli kartaan tusaale ahaan oo kaleeto midnimo supermarket oo kale haddaad tagtaan waad arki kartaan boos mashiinka hadda sawirka idinkaaga muuqda iyo sidoo kaleeto in aad lacag kagala bixi kartaan ATM mashiinka oo labadooda haddii rabbi idmo sharaxaadaha kooban ee soo socda aan kaga hadli doono waxa ay yihiin iyo adeegyada ay inoo qabtaan labadaas mashiin haddii rabbi idmo mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo